السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وإن سلامة وعلى الصوماليات من قصدنا دافت كجوتان عن الذي عافنا دي عباسو بالكوار إن شاء الله. سود هذا مركلية مقال عصب هالكوان نجلس عتان وسعدي في الشيال أنا جواي علي أو لا شينا إن شاء الله. سود هذا جنالك ولا لها جنالك الصوماليين جنالك مسلمين تردن إن شاء الله. هدو إلهي إدماء دوسي فرض إن شاء الله وحبذنا لغا فائدة. هدو إلهي إدماء فضلا سبسكرايب تكو عاوي لايك وصار كومنت قروح بدنا وديجرين وساقر إن شاء الله. لايك توحينا سعيدة إن شاء الله وحبذنا ينطر يسام وقالك إنه نوباهو سبسكرايب وابسك أكتين وابسك إمام الطور إن شاء الله. هدو إلهي إدماء سود وهذا أنتنا دعوته أنتنا دعوة دونته أنت حد نوحرم أنت عصب أنت هو سود وهنا إن شاء الله. سود وهذا أنتو عن هل إيه لبك ده دونا. هدو إلهي إدماء دتك يوتيوب سوف دستو أو قصة على يوتيوب waxaan loo baahneen jiro runtii waxaan loo baahneen jiro wax loo baahan yahay iyo waxaan loo baahneen jiro iyo wax iska faakideysi iyo wax iska sheeko ah saas la ajligeed dad ayaa jiro iska soo fadhisto oo xumaanta ka raadiyo ilbaxnimo ka raadiyo caanimo ka raadiyo magac ka raadiyo lacag. waa qalad wax fiican ma ahan. dhalinta Soomaaliyeed waxaan idin sheegayaa wixii ilaahay ku qoro ma seegaysid in sha Allah. wax alaal wuxuu ilaahay ku qoro oo adduunkan aa ku leedahay waa heli doonta hadduu ilaahay ku qadaro. haddii uu ku qadaran in sha Allah intuu ilaahay ku qadaro ku qanac alxamdulillah dheh tartiibtaada u joog. wax dhibaato ma arkaysid. ilaahay idankiis faa'iida ma hayna qasaaramkaaga ima haysa. laakiin in sha Allah haddaad ku raadiso magac iyo maamuus iyo lacag ama hanti ama wiji ama caanimo ku raadiso xumaan waxba ma ku soo kordhayaan. magacna waa ka dhintay xaq aakhirana wax kuma jiraan xaq adduunyana waa magac xumaa suuq isku gilisay. dad kugu taageerayo oo fiyuuskan badan u jeedid oo maxay ahaato marka xumaan soo gilisid aad lagu daawado. marka maanta anoo kala hadsan intaan ka hadlayo wax yar la daawado aragto hebel oo xumaan soo giliyo si fiican loo daawado adina waxa ku dhiiranaysa inaad xumaantii soo duubto oo aad ku dhiirato xumaantii. taasna waa qalad. dadka daawado waxaan uga digayaa walaalahayga oo wiilasheena ah oo gabdhaheena oo dadka adi inta qeyrka jecel walaalaha dadku isku mid ma ahan. dad ayaa jiro oo wanaaga jecel wanaaga taageero wanaaga horumariyo. dadka wanaaga horumariyo iyo dadka kale waxaan u sheegayaa inay waxaan ay horumarinayaan ay qeyr ahayn ay shar yihiin. qofna oo duurka ku galayo oo maxay ahaato magac uga dhimanayo maamuus xumo oo ay ka soo raacayso sharaf xumo ka soo raacayso oo meesha mustaqbal xumo ugu ma hayso. waxaa laga yaabaa inuu dhalinyaro yahay hadda soo baxay maskax ku filan oo haysanin. waxaa laga yaabaa inuu qof weyn laakiin aqli ku filneen. qof weyn aa jiro oo wax ka maqan yihiin. qofka ay wax ka maqan yihiin adaa walaalkiisa waxaa laga rabaa inaad wax u sheegto oo dhahdo shaygaas ka joog. marka insha Allah waxaa inay sheegay walaalahayga xumaanta horta Soomaali aniga markaan YouTube-kan furay koodii aan cusbaay dad badan waxay dhihi jireen adiga waxaan soo duubto wax u baahan ma leh ha soo duubin. dadkan Soomaalidan waxaas ma xiiseyso. Soomaali waxay jecel yihiin wixii markaas taagan wixii markaas update ah oo loo baahan yahay maxay ahaato soo gili hebelow soo gili kan soo gili. aniga Soomaali haday xumaan jeceshahay aniga Soomaali anaa ka dhashay xumaan ma jeceli. qofkii xumaan jecel Allah ka soo hanuuniyaan leeyahay. qofkii samaanta jecelna Ilaahay ha hormariyo. ani xumaanta ma taageersana insha Allah. qof xumaan soo duubo oo ciwaankiisa ka arkay eray aan fiicneenna maba daawado. Ilaahay ha ka soo hanuuniyaan dhaha mana daawado. marka dadka fiyuuska badan ku siiyay xumaanta oo wiilasha duurka gelinaya gabdhaha naga sumcad xumada nooga ridayo waxaan uga digayaa inay ka waantoobaan arrintaas. wax fiican ma ahan. qofka walaalka ah waxa loo horkacaa wanaag. adiga ma jeclid gabadhaada inay xumaan maanta soo duubto meel soo dhigto ma jeclid. wiilkaaga ma jeclid inuu xumaan inta soo duubo meel soo dhigo. qof jecel maanta qofkiisa inuu xumaan soo duubo ma leh. dadka kale oo soo duubay ku qaldamana waxa sii haysiin like badan views badan subscribe badan si oo qofkii qadka ugu bax looma baahno. waxaas qofka soo duubay iyo qofka daawada iyo qofka leegta iyo subscribe ka siiyay intaba dambiga waa u qaybsan yihiin. ilaahay xaqiisa waxa laga xisaabiyaa ma ahan wax anaka xageena yaalo. fadlan Soomaali weynay dhamaantiina social media qalada ka fahanay sidii loogu talagalay. ma ahan waxa leeyahay Soomaali milyan ma gaarayso ayada xaasid isku ah. Soomaali xaasid isku ma ahan. idinka xumaanta wax ka raadiyo. dadkan wax soo duuba milyanka gaaray oo u jeedin oo boqolka dhaafay oo milyamaadka tumay oo u jeed isku mashquulaan ismacaayaan. hadday xumaan soo duubaan ayaga Ilaahay xaqiisa rajo kama balahba waa dadka qoorsaday oo adduunkan inay helaan ma fahantay. haddii aad u raadiso xumaan inaad milyan hesho darteeda aad Ilaahay wajigiisa ka go'do insha Allah maalinta qiyaamo iyo adduunyada waad
ka shalaahaysaa wax fiicanna ma ahan waxaa idin leeyahay inaad iska dhaaftaan arrintaas wax fiican ma ahan walaalahayga tihiin ani walaalahayga tihiin wiil haddaa tahay haddaa gabar tahay waxaa tahay walaalkay waxaa tahay walaashay xumaanku ma rabo labadii in dhashana sidoo kale xumaan inay rabaan dadka idin la dhashana sidoo kale inay ma rabaan ehelkiin xumaan inay ma rabaan dadka idin daawanayo duurka idin gelinayana ka waantoowa dadyow idinkana kunkiina xumaan ha ku dhiirigelinina hindhihiina xumaan ha ku daawanina qof walaalka wax yar oo ku qaldaba inta toosi lahaydna ha u horkicino ha dhihin keep going hore soo bad hebelo ha dhihin ka jooga Soomaali dad muslimiina way boqolkiiba boqol waa dad muslimiina ma ahin dadka dhinacna gaalka ee dhinacna muslimka laakiin inteena badan waxaan dhiirigelinaa xumaanta qofka muslimka waxa la rabaa xumaanta haduu afka ku suuli waayo gacanta inuu la galo anaka laakiin waxaan ku bixinaa waqti iyo juhdi xumaantii marka Soomaaliya magacaan duurka noo galay inaad iska dhaaftaan dhalinyarada waanisan oo dadka janalada waaweyn leh ay dadka waaniyaan oo ay dhahaan xumaanta ka jooga oo dadka markay xumaanta soo duubaan aad dhiirigelinaysiin aad dhiirigelino dadka wanaag soo duuba aad kor u soo qaadaan si oo wanaag u bato maanta haddaan xumaan soo duubo oo helo 100,000 200,000 oo views helo oo maanta wacyigelin soo duubo 100 qof xataa i daawanin qof kasta wuxuu ku dhiiranaa inuu xumaan soo duubo marka walaalayaalow ka jooga arrintaas wax fiican ma ahan noo maroona magac xumo sumcad xumo sharaf xumo aakhiri adduunseega nagu dhacay aan ka joogno warkaas dadka taleefanada heesto dadka internetka isticmaalo xumaanta ha dhiirigelinna ilaahay ka cabsada aan ilaahay uga cabsano shay walbo la sameeyay in ilaahay looga cabsada fiican ma fiicna inaad hanti xumaan ku raadiso ma fiicna inaad magac ku raadiso xumaan hadda waxaan arkay laba gabdhood aan ahnay Soomaaliya ahay Muqdisho ku noolnahay waa isqabnaa waligeen inta lagu arko warkaas oo kale gabdho yar waaye hadda soo baxay qurux badan oo cadaan badan oo maasha Allah kala kacsan inta meel soo fadhiistan shaashad horteeda ay muslim iyo gaalaba ee u jeeday leeyihiin anaka isqabno hal isguursado maxaa ka dhihi lahayd bar hooyada ma arkaysa miya muuqaalkaas oo aabaha ma arkayo miya oo dadka dariska kula yaabayaan miya war waaba lagu yaabay maxaa inaga qaldan war Soomaaliya sidaas ma ahan ka jooga wallahi billahi maalina maanta aheena laga shalay doonaa maalina maanta aheen aan waxba laga gaarina laga shalay doonaa ha laga joogo waa qalad adiga soo duubay waa ogtahay inuu qalad yahay aniga ku daawanayo waa ogahay inuu qalad yahay maxaa marka ku duubtay meel kasta taawt way yaaleen inta daawanaysa waa yaabe berrin wax kale soo duubayaan ogow intaas kuwa ma joojinayaan berrina war kale soo duubayaan intaas kuma harayaan marka Soomaaliya jooga sidaas ma ahanay jooga wanaaga hor u qaada oo qofka wax fiican soo duubo kor u qaada qofka xumaan soo duubo si uu berri ugu dhiiranayaan la daawan dibka wax keena soo views ma ahan wax dhibaatada keenay waa views marka Soomaali maxamed ay viewskan iyo social mediahan aan dadkana ay shaqo iyo ganacsi iyo adduunka tabceen oo anagana xumaan iyo sharaf xumaan ka tacabnay aan iska dhaafno oo wanaaga aan raadino walaalayaal waana ku dheeraaday marka insha Allah waa soo gabagabeynaa haduu Ilaahay idmo walaalahayga Soomaaliyeed oo ka jooga arrintaas wax fiican ma ahan dhalinyaro jooga dhalinyaro tihiin dad had ubaxa tihiin dadkii waxa tihiin oo dadka hadda oo hortiina jooga soo bedeli lahayd tihiin ma ihidin dad deela marka ha shaqaysanina fadlan idankoo qaali ah wax badan ku fadhiyo ha shaqaysanin hoos ha isku dhigin maxaa ka qaldan kor isku soo qaad si kasta horumar ku sameey kartaa waa shaqaysan kartaa waxa bar kartaa meediyaha naftirkiisa wax badan ka sameey kartaa marka magacaaga ha dilin fadlan magacaaga ha dilin sharaftaada ha dhaawicin oo waalidkaaga ha jabinin oo Soomaaliya oo dhan magac xumaa u dadana waxay leeyihiin Soomaaliya nahno waxaan joognaa Muqdisho ma ku sii noolnahay gabdhow soo baroobeeya waliga ma aragteen intaas waaba intaas ka xunaa la arkaa marka waa soo gabagabeynaa insha Allah walaalahayga ka jooga aan iswaanino waraa isqabano dadka janalada waaweyn leh dadka maxay ahayd magac leh dadka maxay ahayd oo kor u soo baxay oo hadeer janalkooda intaas oo gaaray war dadka wacyi geliya dadka wax u sheega fiiri caaw markay gabar wax xun soo duubto inta janaloo weyn waa laga soo deynaa meeqar waxa arkaysa inta janaloo weyn oo maxay ahayd horumaro maxay ahayd inta magac noogu leh waa laga soo deynaa caaw marka xumaan soo duubo ma aragteen janalo kale oo yaryar oo la soo gelinayo ma jirto
reaction laga bixiyaa lagu leeyahay qofka xumaanka soo duuba reaction laga bixinaa 300 qof ku xiran qofku intaas oo qof arkayso qofkii meeshii wax kale oo ka sii helaa marka wanaaga kor loo soo qaado fadlan way ku roon tahay anay i roon tahay aday ku roon tahay magaca dhan oo Soomaali weyn ay u roon tahay fadlan wanaaga hala share gareeyo insha Allah xumaantan aad baafinaysan iska dhaafno oo soo gabagabeynaa waana ku dheerada muuqaalka ka raali ahaada inkastoo muuqaalka idin ku dheereeyay waxa way kasto isbiirtada ila tagtay aniga gabaraan qaba adiga gabaraan qabtaa wiila ku joog wiila ii joogo aniga wiila ila dhashay wiila ii dhalay xumaan oo dhan nooma rooma khayrkaana anfacayo wanaagana deeqo insha Allah aan isdiira galino fadlan muuqaalka leek saara muuqaalka hal leeg gareeyo insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh